وريا أنا واحد ورا بلد كذا صح يا حتى الرباب كذا كذا صوت صاير كذا هم يروحون أنت اللي ما بتطالع من والله كذا طلب ويجي بحي أنا بحي لا ينوني بعيد الحمد لله كذا وريا ولا حب شيء هذا راقل كينية قرقينية الرب داعي كذا ما تكبر رمز جوال معنا هذا راده وربع سوق قريب اللوك هذه وركان دكيرة دقيس هذا رقوا وين باتيه هذا بلغاهم مصر ميزانية سنة 2016 waxa weeyaan 7 bilyan dhibic 9 weeyaan milyan weeyaan waxana loo talagalay in wax laga qabto adeegyada aasaasiga ah sida beeraha iyo waraabka boqolkiiba 10 oo boqolkiiba 10 noqonaysa percent marka boqol ahaan loo dhigo sidoo kale horumarinta biyaha oo isaguna boqolkiiba 8% marka boqol ahaan loo dhigo sidoo kale horumarinta magaalooyinka iyo guriyinta iyo shaqo abuurka oo isaguna ah boqolkiiba 9% marka boqol ahaan loo dhigo waxa kamid ah sidoo kale waxbarashada oo isaguna almost boqolkiiba maartay 17 noqonaysa marka boqol ahaan loo dhigo waxa kamid sidoo kale caafimaadka oo ah isaguna boqolkiiba 13 markaan u dhigna boqol ahaan ama in percentile aan u dhigno waxa loo yaqaano waxa kamid sidoo kale jidadka iyo ama wadooyinka oo isaguna noqonaysa lagu talagalay boqolkiiba 3% miisaanada guud ee maartay adeegyada aasaasiga sanadka 2013 tirsiga dalka Itoobiya sida darteed waxaan bulshada sharafta la socodsiinayna muhiimadu waxa weeyaan in ay meeshan ay ka jirto wax loo yaqaano cadaan iyo isla xisaabtan oo qayb ka macnaha maarta hanaanka maamulka suubanka ah sadarteed bulshadeenu waxay xaq u leeyihiin in marka mar walba ay yimaado waxa loo yaqaan isla xisaabtan in la xisaabtami karaan maamulkooda xisaabtami karaan oo wixii iyaga loo qabtay ay wadin karaan maanta mar haddii miisaaniyadeena halkaan marayso meel fiican baynu maraynaa maasha allah miisaaniyadii dee taa la sheegay mid arkay miisaaniyadana ay nimankan sheegayaan ma hayaan ما بينتونا ma hayaan waxa lacagta ay sheegeen ma hayaan nimanku waayo dee hadday hayaan waa ka dadka miisaaniyada suuqa ugu baxtay ma 20 10 loo dhiibto nool baan kiisu iskaga raysan lahaa waxayna inaga sheekeynayaan ma u dhiibdiidaan oo 10 la siiyo 20 la siiyo eeg dadku way noo يا ورا روتيسه saas weeyaan adeereede adeer lacag la iska dhiibdhiibayaan ma jirto lacagtan miisaaniyada dalka waa kabayaasha dhaqaalaha iyo horumarta iyo mashaariicda dalka ayaa loogu talagalay ma lacag la iska dhiibdhiibaa la isla kala xisaabtama hadaadeen halka markay marayso haddii ay sidaa tahay waxa weeyaan qabaleeyaga iyagu waa inuu helo inta ay qabaleeyada kale helaan adeereede qabaleega iyagu miyuuna xaq u lahayn oo waddanka ahayn miyaanu degmo ka tirsanayn oo gobol ka tirsanayn oo heer deegaan loo soo qabaleeginu waa xaqi qabaleega iyagu wuxuu u baahan yahay maxaa gobolka iyo degmada soo marinaya ma qabaleega iyaga la keeno waa xaqi qabaleeginu xaggaasu ku yaala meela dad intee leeg iyo population intee leeg baa adeer jooga mararka qaarkood aniga islaantayda ku soo hadhna mar hadduu adeer sidaa u dad yar yahay dadka iyo baahiyaadka asaasiga way kala horeeyaan waxa iskuulada iyo biyaha iyo caafimaadka intaba loo hormarinaya dadka siday population ku kala badan baahiyaadku ay u kala jiraan adeer waxa weeyaa waxa isku raacilaada war aniga islaantayda miyaan loo baahnayn iskoolkii oo caafimaadkii u baahnayn oo laamigii u baahnayn oo laydhkii u baahnayn oo marmar dadku ay soo degaynin oo meesha ay dad badan noqonay aniga islaantayda maxaad u yasaysaa loo yaraysanaya adeereede haddii adeer soo degis iyo sii guurus ay noqoto horumarinta reer miyiga adeer ku jirtaan wax laga qabanaya haysa saarsaarina adeereede baahiyaadka asaasiga wax laga qabanaya sida loo kala dad badan yahay bulshaduna ay degmooyinka iyo qabalayada u kala nooshahay soo yarteedso waayahay waxaan ku weydiiyey hantidan iyo lacagtan aad sheegayso saaxiib caawima inaga lagu caawiyey waa xagbad maya adeereede waa miisaaniyadii dawladda miisaaniyadda dawladdu ma hantida shacabka ay meheradaha ka shaqaystaan ba maya adeer waxba ma ogid miya adigu war adigu waxba ma la ogid war aniga ay soo jeeso caawin mudin hadda ma lidda mugrisa caawin war dhageyso tanu haday jirto oo lacagta inta leeg ay tahay dadka way ka badan tahay waxaan anigu leeyahay haddaba qabaa'il walba wixiisa inta farta laga saaro isagoo ama iskuul ka dhisto ama meelaha ka iyaga iskala ogi ama ha cuneen iyaga iskala og qolo walba wuxuu leedahay loo dhiibo qabalee baa lagu qaybsanaya adeereede
intay dawladdu miisaaniyadda qaado reer walba intaasaad leedahay wadayaashooda ugu dhiib adeereedhe qabiilkay naga taa qabiil naga taa adeereedhe ninka qabalayga wax ku doonaya kaa dhow qabiilkay naga taa miyaanan nin weynahayn waxaad ku yeellaa meel cirraahayn hadday tahayna adeer goormaynu qoloqolo ka tagnay goormaynu ka tagnay adeer reer ay naga taa qabiil adeereedhe ay naga taa dalka aayihiisa laga talinaya waxaana leedahay noo dhiibdhiiba waa waxa la joojiye laleeyahay waxbaanu ku qabanaynaa in nagala xisaabtama miisaaniyadda dakhliga laguu sheegaya adeer baahiyaadka asaasiga baa hore wax loogu marinayaa iyo hantida bulshada ka dhaxaysa geedaha iskala og baahidooda waar adeer dhegayso adeereedhe waxaan ku moodayaa qof wax garanaya oo maskaxdiisa iyo dhaayihiisa iyo indhihiisu ay furan yihiin laakiin adeer siiroo baa tahay qalbigaagaaba ma maqashay biyo ballaadhin maskax ballaadhin buu u baahan yahay qalbigaagu adeer waayo reeruu kala badani ma sida loo kala meeyo maxay qabiil la xisaabtamaya haddii qabiilkaaga loo dhiib qabiilkay naga taa haddaynu qabiil qolo u qaadano iskuul lama dhisan karayo waa xisaabi daba taagan tahayba dee adeer xisaab baa daba taagan lacagta intaa leeg intaasoo mashruuc baa loogu talagalay inaad u tagto oo dhaayaha furto oo tidhahda lacagtii maxaa lagu qabtay qabiil baa ka shaqeynaya oo dabagallo lacagteena adeer jilad baa lagu samaynaya cusbitaallaa lagu samaynaya iskuullaa lagu samaynaya ubadkaagaa wax lagu baraya adeer horumarinta shaqa abuurka adeer la samaynaya horumarinta jidadkaa loogu talagalay horumarinta caafimaadkaa loogu talagalay halkee wax laga qabtay waayo waxan wax kasta adeer kula ma naga tusi kartaa waa lacag baa qaatay lacag baan qaatay lacag baa ka haysaa lacag waxaan ku weli midkaa shaqa abuurkaan ogahay dadkii ka qayb galay baan ahaa dadkii ku shaqaystay waan ka mid ahaa dadna intay ku shaqaysteen bay lacagtii weliba celiyeen oo aad marka xafiiska markaatigaasaan ogahay haa hadda xafiiska cidi ku joogtaa xafiiska waxa weye shaqa abuurku ahaaye haddaad na tusto meel qura wax lagaga qabtay eedhe meel qura oo aad na taabsiiso eedhe taa aad sheegaysaa baan la ogola adeer dalkeenna koone to koone ilaa adeer meel kasta guri kasta xaafad kasta degmad kasta qabalay kasta ayaa adeer lacagta wax loogu qabanaya waana loo siman yahay aminkaan indhaa idinku wada tusaanaya haddii aa u baahantiin meelaha wax laga qabtay taa aynu joogno sanad walba mashaariicda wixii loogu talagalay wixii fulay iyo wixii aan fulin oo wixii fulay markaa aragtaan wixii aan fulin aad tirahdaan lacagtii miisaaniyaddii halkaa loogu talagalay sanadkan ma fulin xaggee qabatay nasoo tus mid ka mid ah inuu degmo kasta inay gobolkeeda la xisaabtanto gobol kasta inuu lala xisaabtamo cid kasta oo maamulo lala xisaabtamo iyo macaheer deegaanba oo aa ogaataan sanad kasta miisaaniyadda soo lagu talagalay inay mashaariicda ku baxdo wixii fulay iyo intii aan fulin aanu kala ogaataan annagoo idinkoo dadweynaha laakiin mid baa jirta horta niman faahsan ma jirta maaliyadda laakiin in mashaariicda lagu fuliyo sidii loogu talagalay loogu fuliyo iyo inaan lagu fulin baa shaki nagaga jira marka la xisaabtamo waanu aragnay waa dhammaatay shaqa abuurkii ma la soo kordhinaya waa la soo kordhinaya muwaadiniin baa tiirsan waa